barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse oo ay weheliyeen mas'uuliyiin isugu jira hay'adda madaarada iyo duulista wasaaradda jidadka xildhibaano aqoon-yahano iyo waxgarad kale ayaa waxay kormeer ku tageen garoonka diyaaradaha ee magaalada Ceerigaabo halkaas oo laga wado dib u habeyn iyo dib u dhis ay iska kaashadeen hay'adda duulista iyo madaarada Somaliland iyo hay'adda wadooyinka Somaliland ee RDA isla markaana loo diyaarinayo sidii madaarkani u noqon lahaa mid ay diyaaraduhu ka haadaan kana soo degaan waxaana kormeerkaasi kadib goobta kala hadlay warbaahinta xubno isugu jiray isuduwaha hay'adda duulista iyo madaarada ee gobolka Sanaag Aadan Ilka Case iyo maareeyaha marshuuca wadada gobolada Sanaag iyo Togdheer injineer Maxamed Cabdi Qorsheel xildhibaano kamid ah golaha deegaanka degmada Ceerigaabo aqoon-yahano iyo waxgarad kale waxaana kamid ah hadaladoodii taasoo runwayga waxa weeyaan ama dhabaha ay diyaaraduhu ka haadaan cid walba sida ay u fahamto laga dhigayo waxa weeyaan gravel and compacting waxaana la hadda insha Allah waxa weeyaan la diyaarinayaa oo isticmaalka rasmiga ah loo diyaarinayaa runwayga runwayga taxwayga iyo abronka cabirka iminka compacting and gravelka lagu sameeyo waxa weeyaan waa 2 km ama 2 kilomitir inta waxa dheer taxwayga waxa kale oo aan soo sugnay hay'adda madaarka wixii ka qabyada ahaa uga mahad celinayaa maareeyaha guud hay'adda duulista iyo madaarada Salaamersiid soo qabtay cabiradii oo la qaaday haday runway tahay haday taxway tahay haday abron tahay waxa la sameeyay clearance-gii waxa imika gudaha socda in ay maanta taaganayn runway-gii aynu ku guda jiro gudihiisii waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu mashruucaasi dhamaan doono waqtigii lagu talagalay ilaahay idankiina degmada Ceerigaabo ay yeelan doonto diyaarado iyo airport shaqeeyo functional muddada loo cayimayna ay tahay in bisha shanaad lagu abshiro in diyaaraduhu soo fadhiistaan gobolka Sanaag baa u sheegaya maanta hadii waxa weeyaan airportka Ceerigaabo uu noqday airport shaqeeya inuu dhaqaale inoo soo kordhinayo in sidoo kale ay fududaanayso isu socodka gobolada iyo degmooyinka ama caalamka in ku xirmayno ugu dambeyntiina maayir ku xigeenka degmada Ceerigaabo Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed agaasimaha waaxda madaarada Somaliland Cabdikariin Maxamed Biixi iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa iyaguna hadallo halkaasi ka yiri Ceerigaabo ahaan aad baan soo dhaweynaynaa waxaan uga mahadnaqaynaa ugu horreyn madaxweynaha qaranka mar labaadka wasaarad kasta nooc ay doontaba ha noqotee maanta halkan aynu joogno dhagax dhig maaha runtii shaqadan hore u socotay haday tahay fenska haday tahay xayndaabka iyo area-da airportka runtii aad baan uga mahadnaqayaa isaga laftigiisu isaga iyo qoyskiisuba mudnaanta koowaad bay leeyihiin halkaana customka iyaga ka bixiyay ka deegaan ahaan mudnaanta koowaad baan siinaynaa runtii anagu qayb baanu ka nahay halkan maayirka hore u joogay aad baan ugu mahadnaqayaa cid walba ka qayb qaadanaysa labada hay'adood ee heer qaran ee hay'adda duulista hawada iyo hay'adda wadooyinka oo iska kaashanaya hirgelinta mashruucan insha Allah bismillaahi kariim waanu kula shaqeyn doonaa aad iyo aadna ugu mahadnaqayaa marka koowaad iyo marka labaadba maareeyaha bishii hore markuu yimi halkan ballan weyn buu u qaaday reer Sanaag ballantiina ifafaalaheedu waa muuqdaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu qaybtii hore dhameystirmo waxa socda oo kale waxa ku xiga terminalkii iyo towerkii oo iyaguna marka dambe ku xiga diyaar la yiraahdo Allah uu dilo ogolaado waxa halkan yimi sanadkii hore maareeyaha duulista madaarada Jamhuuriyadda Somaliland Master Said Umar oo ballan qaaday bisha May wixii ka horeeyay in la dhameeyo madaarka wixii ka dambeeyana loo fasaxo inay soo degaan diyaaradaha ku habboon madaarka inay yimaadaan madaaradu waxa weeye waa kaabayaasha dhaqaalaha kullu waxyaabo badan bay ka tiri doonaan gobolka iyo degmada iyagoo oo kor u qaadi doona ganacsiga dalxiiska iyo shaqo abuur intaba insha Allah waxaan rajaynaynaa in waqtiga uu maareeyo noo cayimay oo noogu gabagaboobo madaarku runtii waxa ayna farxad weyn ah in maanta lagu dhisayo madaarka gaadiid ka shaqeynaya yihiin gaadiidkii dawladda shaqaalaha ka shaqeynayna yihiin shaqaalihii dawladda taasa Ilaahay mahdi ah mar waxa jirtay aanan haymayntaaba